marka ugu horeysa madaxweyne waxaan ku weydiin lahaa safarkan aad ku timid magaaladan London caasimadda dalka Ingiriiska ujeedadeedu maxay tahay? bismillaahir rahmaanir rahiim. socdaalkan aan ku imi UK wuxuu ka dambeeyay caasimadda Casuumeyn Nomad iyo Irish Society ama group class society oo ay uga casuumeen inaan kala qayb galo xafladda 7 May si kor loogu qaado indhaha caalamka lagu soo jeediyo. in fact wuxuu ka baqanay inaan ka absaamo sababtoo aan ku maqnaa sanaak oo aan islahaa waxa kugu dheeraan xalilka mushkilada sanaak laakiin walaal xamd markan arrinkiisa la ka soo dhamaaday waxaan toos u soo abaaray oo laba habeen u soo hoday Hargeysa waan imi toos baan ka noo imi waxa ugu weyn ee halkan loo yimi Somaliland waxay leedahay waa yoolkaas waxa weeye waa ixtiraaf marka hore inaan dadkeena ku guubaabiyo in yool kale la yeesho oo khilaafaadka dhexdooda la iska daayo talabaad waxa weeye in community-ga wadankeena la jiheeyo oo meel isugu geeyo oo tafaaruq laga saaro si ixtiraafka ama aqoonsiga wadanka yoolkeeda barnaamijkeeda loo dhigto taguuna waxa weeye wata laakiin waxa ay soo gashay in foreign-kii dowladda Ingiriiska aan la kulmay galabtana la kulmay baarlamaanka oo dabcan qadiyadeena ka cadeynayo waliba qadiyadu maahay waxa weeye adduunku waa give and take Soomaaliya hadii la tiraahdo maxaa laga helaya taana inaan waadixiyo waxa Soomaaliya laga helayo oo aan u sheego adduunyada inuu yahay ictiraafka Somaliland maslaxadda geeska Afrika oo dhan ama inuu yahay furaha dambe Soomaalida laakiin aanan ku milmil kareen imika maadaama aanan ictiraafsanayn oo ka baqayn hadii aan dhex galan ku burburno laakiin hadii la ictiraafo inaan wax ka qaban karno geeska Afrika as a whole inaan ka dhaadhiciyo Soomaali weyntii la doonayay inuu ku ahaa third geeska oo dhan waxa weeye adduunka inaan ka dhaadhiciyo Somaliland la soo la soo hortay xornimadeedu inuu wax ka taraayo nabadda geeska Afrika uu noqon doono furaha dambe Soomaali jahayn kara ama sal u dhigi kara aan cid kale oo fadhida Kenya iyo Ethiopia iyo Masar iyo aan u dhigi karin yoolkeena waxa weeye ama shaqooyin waxa weeye waa yoolkaas oo ku balbalaariyay waxa weeye yoolkeena waa meel taasaan maanta meesha waxaad sheegtay inaad la kulantay wasiirka arrimaha Afrika ee dalka Ingiriiska waxyaabihii aad kala hadal ka mas'uulahaan inta in leeg ayuu garowsaday ama asla meel dhigteen horta marka wada hadlaysaan isagu waxba wata adna wata waxa uu sidoo yool baan leeyahay yoolkeena ku qanciyo qoladan iyaguna mid bay ugu qancinayeen maanta waxa ku xiran aan ogaaday oo aan nasiib daro dhowr kun oo inaan oo Soomaalida ku xiran jeelashan Ingiriiska oo teenagers oo la kala leeyihiin iyagu kuwaasi xal u raadinaya waxaan ku wiri barta Soomaaliya ictiraaf dabcan arrinkan ka wada hadalna waxaan u qabaa way laqeen waxaan ku iri markana ictiraaftaan annaguna wixii aan idin qaban karayno ee arrimahaas waan idin ka qaban karayna laakiin waxaan ku iri hadii aan ictiraaf weydaan more will come madaxweyne waxa jira dadka dibadda jooga hadii goraale wararka ku badan warar waxa sheegay dawladda Ingiriiska inay si weyn ay u muujisay silo ku saabsan matalan qaabkii xukuumaddiina u maamushay ama madaxweyne reer maamulayeen guddiga doorashooyinka maadaama Somaliland dhawaan doorasho ay ku soo dhowdahay dhaqaale ay heli lahaydna la sheegay in dib loo waabiyay oo aan dhaqaalahaasi ballanqaadkiisii hoos loo dhigay arrimaha wali mid kala hadlayeen ma ka hadashay ma filayaa shirkadda hore wax sheegay waxaan ku arrinkaas waa ari very simple waxa weeye guddida doorashooyinka madaxweynuhu saddex buu keenaa guurtu laba keentaa mucaawadku laba leeyahay waa todobada weeye wax kasta oo la soo jeediyo waa soo jeedin guddidan dadku waxay faahfaahsan qalad soo jeedin iyo rasmi waa kala gaar guddida doorashooyinka waa soo jeedin xaq waxa u leh inay diidaan ama ogolaan kala waliba kala bad iyo hal bay ku ogolanayaan nin wala individual nin walba waxay ku ogolanayaan kala bad golaha iyo mid bay ku ogolanayaan
marka wax weyn oo laga waxa weeye ninka la soo gudbiyo waxa la eegaya siifigiisa guuda la saaray waa la baaraya xisbi ma ka tirsan yahay urma cid masaaxiib ma leeyahay ninku waa noqdaa nin gees walba ka saliima waxa weeye go'aanka u dambeeya golaha leh marka go'aan golahu uu leeyahay anuma qabo wax wala hadlayaba soo gudbi midka la soo dhigo hala baaro hala codeeyo fi fit goes on hadii kale tuu basharay marka anigu waxa isku qabsadaba golaha ku jiray sharci kuwa ku sameeyay kamid baan oo aan garanaya laakiin waxaan kale isku riixayaa waa alfaadi weey maadaama uu go'aanka uu golaha ku leeyahay ma umaleynaysa marka inay doorasho ka dhacayso Soomaaliland madaxweynaha iyo tan ka horeysay deegaanka oo sidii qorshu yahay inay u dhacayso waan qabaa ay waxa su'aashu tahay madaxweynaha iyo ku deegaanka mar ma la wada qaban kara isoo wala kala qaban kara haddii la wada qabanayo waxa u dhaxeeya afar bilood hore waxaan soo qabanay tii distorka tii tii madaxweynaha tii wakiilada afar doorasho oo afar sano consecutive ayaa la qabtay maanta anagu taanu ka hadlaynaa waxa weeye waxaan nahay dawlad faqiira oo xamili kareen dawladda way baan sameeyay noocaas aan sameeyay tii hore ka soo qaad inaynu wax dhisaynay systemka uu dhismay anigu shakhsiyan aan ku hadlaya ra'yi kaliya waxaan qabatay madaxtooyada iyo golaha deegaanka in mar la qabto soo khashban oo yaraado labada gole guulsi balaba in mar la qabto oo aanay ku dhaafin doorashooyinka laba jeer 5 years oo kaliya haddii kale oo la qabto sidii hore waxa bilaabmaya fiqdi xasad adag soo baxay wakalka oo dadkii ay jireen haddana after formative golaha مثلا tan waxa la qabanaya waa December weey well after formative 2008 waxa la qabanaya waa timid asbaatiyada 2010 waxa la qabanaya wax weey waa majnaanad weey maxamil karnaa weey ana ku bidin maxamil karnaa dhaqaalahan ma hal ay waa la qabanaya soo waa la qabanaya oo kumarku waa xarub jira ma إذا شو حوي مين سجينا هدينا سجينين لقاها يا حناية لو أفر برودوين يا أخي أفر شهر حمل منه أنا قال تايم كيجي شنتي صدق كل حلا من دور شوي هذي كان بي دي دور شدا سنعدو طبعا حليلي دار يدمع من الرجع كمان دمارو هذيك اللي فهمت هذا شن سنة كهر مركي دور شدي شنتي سنة يكون دولة أمريكا دور شد كسب بعد من الحين بحكي حلستي هراء من الحين ريال كده waxaad ka wartay madaxweyne ma laga yaabaa in aad ina soo sharaxdo ku xigeen ama madaxweynada xisbiga udub wallahi waxaan ku kula wadaxiyo xisbiga qoriyay in madaxweyne isa soo sharaxa wuxuu leeyahay laba taran buu leeyahay laba taran ayuu leeyahay fahmid anaga iyo khilaale waxaan sharaxnay waa xisbiga udub xisbiga haduu ku qanco oo aanu mar dambe wax keenin karno waa arrin xisbiga taal ما حصل مرة وهي حسبي إنه جون مشروعنا قبصنا يا حسبي اللي قعد سوي الشيء إنه قبصدي تبو دوري ودبو سو شرح فيصل على ورابه بس لا يحسبي ودي كل مية يجون واحد شيء قبصنا كان قبصنا يا شروعنا أوروب اللي هو شروعنا مع أوروب مجاهن وأوروجرا أو حسبي جرا لكن كحسبيهان يقاب حسبيه ومشقيه وشخصية هي حاجة اللي خلاص ما عصوا كلا يبقى البوشي يعني تجيب جدا حسبي لأوروب ما كمان لقى يا بعدين إن كيف بتذكر ويدان بعرفه هذا كوير واضحيه كوير واضحيه مثلا مريح أوروب وقلها وكلكم وقلها ربح وسيلة ومريه كصب حي وعنقة ومن حوله ومريه كصب حي حسبيه وحوي حسبي هو شغال مطور هذا كيف تفاصيل شغال مضي إبلارن أنا قوة نفسي هذا نفسي أنا قوة نفسي كمان أنا استيبان من حسب قناة تذكر قناة وخلي لي يعني وحكى صار يعني حسبي إيوه يحكوني خسارة يا حكى صار يعني ليس ديفرنس وعلوي إسلامي ضد صدق سنوات كلام حكون وقع وضد هو حسبي حاكم كسوي وعلوي هذا قصان وحي عن وإن كيف سهل إن كيف سهل هذا حمرينا وحنا حمريين إن في حسبي الحوالي وحنا نقب إسرائيل وحنا حسبنا إنه إسرائيل يقطع شقيان مثل غبرة كشغل هيا قلت هاي شغل هيا لو دخلت في قيمة يدوها بحضر يعني واحد صدق مدحونا